السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيار تقييمها بدن أصحابي أدبان إدي وذا السلام يا ميل كستو أتشوكتان وحان دي الله يحي سود واضح مانتا وحاينو كشيكين دونار نهانتي قصو آد عجب بدن حكمت بدن وعشر وين كجرو waxaan idinka sugayaa markaynu qisada iyo casharka dhamayno in aad inoogu reebtaan commentiga hoose bal waxa laga faa'iideeyo qisadan haddii aynu bilaabano bari baa waxa jiray nin aad u khayr badan oo wasiir ka ahaa boqortooyo waqtigaasi jirtay ninkaasi waxa uu halhays u lahaa kelmadda ah la'allahu khayr halaga yaabaa in ay in khayr inoo leedahay ama khayr ku leedahay ayuu u lahaa halhays ayaamaha kamid ah ayaa waxa dhacday in isaga boqorkiisii uu farka dhaawacmo kadib waxa uu boqorkii ku yiri la'allahu khayr waxa laga yaabaa in ay khayr ku leedahay boqorkii waxa loo qaaday dhakhtarka si loogu soo daaweeyo dhakhaatiirtii waqtigaasi jirtay waxa ay u sheegeen in aan fartiisa waxba laga qaban karin isla markaana la jarayo waxa uu ku yiri ninkii wasiirka ahaa boqorkiisii la'allahu khayr waxa laga yaabaa in ay khayr ku leedahay ninkii boqorka ahaa ayaa xanaaqay run ahaantii oo ku yiri war ninkani hala ii xidho halkee buu khayr ku joogaa fartaydii buu nabariga soo gaadhay oo wuxuu yiri la'allahu khayr waxa la igu yiri waa laga jarayaayo wuxuu yiri la'allahu khayr war ninkan lagu tuuro buu yiri marka ay ciidankii qabteen ay sii wadeen ayaa haddana waxa uu yiri la'allahu khayr waxa laga yaabaa inay khayr ii leedahay xidhitaanka la xidhayo ee saldhiga la igu sii wadaa ninkii sidaas lagu xidhay wasiirka ahaa oo saldhiga ku galay kadib waxa dhacday in boqorkii fartii sidii lagu jaro kadibna maalin kale uu ugaarsi aado boqorkii ugaarsigii markuu aaday baa waxa gacanta ku dhigay oo qabtay qolo cawaana qolada cawaanka ah ee boqorkii qabatay baa waxa dhacday inay u geeyeen ninkii uu ahaa madaxda cawaankaas kadibna waxay ku yiraahdeen ninkani wuxuu u socday ugaarsi wuxuuna leeynayay ilaahiyadeeni aynu caabudeynay ninkii cawaanka madaxda u ahaa ayaa yiri war ninkan waabaynu diliye bal horta inoo eega in uu nabar leeyahay ama uu dhaawac yahay maadaama oo ilaahiyadeenu aanay ogolayn inaynu dilno qof dhaawac ah ninkii boqorka ahaa baa la faray waa la eegay waxaana la ogaaday in ay fartu go'an tahay oo uu dhaawac yahay kadibna waxa dhacday in la iska sii daayo la yiraahdo ninkani maadaama uu dhaawac yahay waar iska sii daaya ninkii boqorka ahaa oo yaaban oo soo xasuustay hadalkii wasiirkiisii ahaa la'allahu khayr ayaa wasiirkii saldhiga ugu tagay wuxuu yiri war ninkani hala soo daayo wuxuu sheegay way dhaboobeene run buu sheegay hala soo daayo laakiin markii la soo daynayay buu su'aal weydiiyo waxa uu ku yiri markii adiga lagu xidhay lagu sii waday waxa tiri la'allahu khayr waa xiritaanka laftarkiisa waxa laga yaabaa inuu khayr iigu jire bal maxaad uga jeeday iyadana waxa uu ku yiri wasiirkiisii boqorkaygiyo haddii aan la xidhi lahayn waxaan ku raaci lahaa ugaarsiga oo kaamaan sahareen markaasi marka adiga lagu soo daayo oo fartu ku go'an tahay ilaan anigu dhaawac ma qabee halkaas ayaa la igu dili lahaa marka anigana khayrku halkaas ayuu iigu jiro saldhiga maadaama anigu aan ka haray oonan ku raacin saldhigaas uu khayr iigu jiray buu ku yiri xikmad weyn ayaa ku jirta waan jeclaa inaan anigu ka jawaabo laakiinse idinka ayaan idii daynayaa xikmadda ballaaran ee ku jirta aynu ka faa'iideysanayno casharkaasi asxaabay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh